dhacdo murugo leh ayaa saaka ka dhacday magaalada Hargeysa kadib markii marxuum Faadimo Cismaan la sheegay in ay geeriyootay gabadhaas oo ahayd aroosad maanta meherkeedu ka qabsoomayay magaalada Hargeysa dhacdada murugada leh waxaanu wax ka weydiin doonaa Abwaan Saciid Maxamuud Gahayr oo kamida dadkii ka qayb galayay meherkaasi oo saaxiibkii uu mehersanayay Faadimo oo maanta ah marxuumada naga hooseysa bal abwaanka ayaa tacsiih diri doona isla markaasna bal murugada la qaybsan doona eheladii iyo qaraabadii iyo dhammaanba shacabka Soomaaliland ee ka baxday marxuumad Faadimo Cismaan ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya marxuumad Faadimo Cismaan oo maanta ku geeriyootay magaalada Hargeysa habeen hore ayaan garaacay inaan saaxiibnayo leeyahay Abwaan Cabdiraxmaan Abees kadibna waxaan ku xagee joogtaa wuxuu igu yiri Khalid baan la joogaa Khalid maninkii reer Mareykan inan buu fadhiisanayaa saan ogaan ugu yiri inantu waxay noqotay markaa inaan xigaalnahay ka soo qayb gal ayuu igu yiri xaalad horena wuu soo garaacay wuxuu ii sheegay in meherku ka dhacayo hoteelka Green Plaza maanta 10 subaxnimo anigoo markaa u diyaar garoobaya inaan meherkii tago oo waqtigu yahay 8 subaxnimo ayuu maarkay taasi la soo dhigay Facebook oo leeyahay Ilaahay u naxariisto Faadimo Cismaan oo saaka guurkeedu dhici lahaa laakiin geeriyootay markaa waxaan sii eegay halkii uu meherku ka dhacayo Green Plaza iyo magaciinanka saaxiibkan Cabdiraxmaan ay saaxiibkiin oo Khalid inantii ma la hadlo waxaan ku leeyahay aroosada meelantii saaxiib aroosku kiisa ah buu ahaa Cabdiraxmaan Abees baan garaacay isagoo hurda oo ku yiri meherkii ka waran oo suu yidawaa oo isagoo warhayn wax ku geeri baa dhacday markaa mid aad iyo aad u naxdin badan ayay ahayd oo halkii looga dabaaldegi lahaa arooskooda waxa imka loo galbinayaa xabaalihii iyo hoygii rasmiga ahaa dhacdo naxdin badan bay ahayd Ilaahay sameeyay mana ka siiyo Khalid iyo qoyskeeda iyo ummadda guud ahaan waxaanay mudan tahay in lagu cibro qaato xilliyan dambena waxa soo badanaysa geeridii naftu gabi ahaan meel laba ma jirto oo qofkaas halka guurka ku tala galay waliba xanuun badan inuu helina shalay galba lagu soo yarabooday Hargeysa Nairobi jabal dhigay xalay oo loo ducaynaysan istaagay kaarkii saakana geerideedii ayay xigtay naftu meel ma jirto aynu ku cibro qaadano Ilaahayna aynu toobad keeno Ilaahayna naxariistii janno ha ka waraabiyo aaskeedu wuxuu ka dhacayaa xabaalaha haleeya waxaana lagaga tukanayay imka wax yar kadib masaajidka Sableeyinta ee bariga Hargeysa saasa baradii rasmiga ahayd loogu gudbin doonaa Ilaahay honeymoon-kii ha ugu bedelo janno iyo naxariis iyo dambi dhaaf Ilaahayna sameeyay mana ka siiyo cid kasta oo jeclay iyo cid kasta oo jeclay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Xamse Xayd CBA TV Hargeysa